ninka Mareykanka u dhashay oo lagu magacaabo Lauren ayaa galay shil halis ah balse waa uu ka badbaaday waxa uuna waayay lugtiisii dawladda ayaana kaalmeynaysay oo bishii waxa ay siin jireen $200 oo kaliya maalin maalmaha ka mid ah si kaliya waxa uu ku daawaday barnaamij telefishinka ka baxay oo looga hadlayay waxyaabo hore oo qadiim ah waxa uuna haystay buste uu ka dhaxlay ayadii oo uu moodayay in wax qiimo ah uusan lahayn baaritaan ayuu sameeyay waxa uu ogaaday in lagu iibin karo $200,000 balse shirkad ayuu u geeyay baarta waxyaabaha noocaan ah shirkadii markii ay baaritaan ku sameysay waxay ogaatay in la sameeyay sanadii 1800 waxaana sameeyay qabiilooyinkii Mareykanka ee asalka ahaa 6 bilood kadib waxa looga iibsaday bustihii 1 milyan iyo bar oo lacagta Mareykanka ah sidaasi ayay isku bedeshay noloshiisii dagaalyahanadii Vikingkii hore inta ay dagaal ku jiraan haddii mid ka mid ah dhaawac ka soo gaaro xagga caloosha waxa ay sameyn jireen basal qayb ka mid ah inta shiidaan ayaa la ursiinayaa qofka haddii uu karka basasha dareemo waxa ay oran jireen kani xagga dhimashada ayuu u socdaa iyagoona ogaan jiray in marka calooshiisu dilaacday oo daawada aysan waxba u tarin qof kale ayayna daaweyn jireen beddelkiisa kooxda Silver Snipers ee Swedishka ah waa koox ku caan ah geemka dagaalka caanka ah ee Counter Strike kooxdan dhammaantood waa odayaal ciyaaryahanka ugu yar da'diisu waa 62 sano halka kan ugu weyn da'diisu tahay 83 sano kooxdan ayaa ah mid aad u xoog badan oo aan la loodi karin waana koox ciyaartaasi heer ka gaartay misana si aan caadi ahayn ugu caan baxday faraha bini'aadamka ayaa dareemi kara waxyaabo aad u yaryar oo gaaraya xitaa 13 nanometer haddaba aan suuraysanno haddii farahagu la ekaan lahaayeen xajmiga kubadda dhulka waxaa suurtagal lahaa inay dareemaan farqiga iyo fogaanta u dhaxaysa guriga iyo gaariga ma aragtaa haweeneyda madaxa ku wadata baastamirka waxaa laga yaabaa inaad isleedahay way waalan tahay ama caanimo ay raadinaysaa balse u kaadi sheekadu way ka duwan tahay sida adigu malaynayso waxa ay gar kaga heshay dawladda Mareykanka inay madaxa saarato baastamirka Mareykanka waxaa ka jira xorriyadda diimaha haweeneydan waxay raacsan tahay kaniisad caabudda baastada waxayna go'aansatay inay diinteeda ku dhaqanto oo baastamirka madaxa saarato iyadoona maxkamaddu u go'aamisay inay haweeneydan cibaadada wadan karto xorna u tahay maroodiyada ayaa ah xayawaanka kaliya ee isku xiran ee aan la kala wadi karin waxa kaliya ay kala geyn kara ayaa ah dhimasho iyagoona maroodiga ka dhinta duuga oo astura xitaa waxaa la sheegaa inay duugaan qofka bini'aadamka ah haddii ay arkaan isagoo yaala jidka ay marayaan maroodiga ayaa leh dhaqan ka duwan xayawaanada kale sidoo kalena waa kuwa iskaalmeeya waana qoys weyn oo isku xiran mar waliba oo iskarabsada culimada ku xeel dheer cilmiga xayawaanaadka ayaa ilaa hadda isku dayaya in ay fahmaan nolosha caalamka maroodiga ee dareenka iyo naxariista leh magaalada caasimadda oo ah Kuuriyada Koonfureed ee Seoul gaar ahaan xeebta Boryang waxaa lagu dhigaa dabaaldeg la yaab leh oo ay ka soo qayb galaan dad gaaraya 3 milyan oo qof dadkan ayaa ka kala yimaada dawladaha caalamka meesha dabaaldega lagu dhigayo ayaa waxaa la keenayaa dhoobo la qasay oo badan midaasi oo ah mid qaali ah oo ah mid loo isticmaalo isqurxinta waxaana lagu daraa maadooyin qaali ah oo jirka bini'aadamka u wanaagsan dadkeena dhoobada isku tuuraya waxaana halkaa yimaada dalxiisayaal aad u badan sanadii 1999 majalada Omni ayaa u aqoonsatay caalimkii Richard Feynman caalimka ugu caqliga badan dunida balse arinta la yaab kale ee qosolka ah ayaa ah markii loo sheegay hooyadii arinka waxa ay tiri haddii wiilkaygu yahay kan ugu caqliga badan adduunka runtii waxaan dhexda kaga jirnaa dhibaato weyn rabbi hana kaalmeeyo sanadii 1987 Steve Rothstein waxa uu shirkad diyaaradeed oo Mareykanka laga leeyahay ka iibsaday tikid dahabi ah tikidkaasi oo qiimihiisu ahaa $150,000 waxaana loo ogolaaday inuu tikidkaasi ku safro inta uu nool yahay iyadoon wax lacag ah laga rabin waxa uu safray 10,000 oo safar ka badan isagoona diyaaradda u raacayay inuu maqaayad gaar ah ka soo cunteeyo ama ciyaar ka soo daawado waddan kale waana nin haysta safar free ah oo aan waxba laga rabin kaliya inuu iska wareego ayuu dabeecad ka dhigtay mararka qaar dad aan guryo lahayn ayuu la safraa oo waddankoodii ku celiyaa halka uu mararka qaarna dad boos u celiyo isagoo aan wax safar ah ama aan dan lahayn Steve ayaa tikidkaasi intii uu adeegsanayay shirkadda waxaa ka luntay lacag gaaraysa $21 milyan iyadoo